السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. الرحمن روح ويه عندها سياسة وحيقول الله يا ويقول بالله يا ويقول تالله يا إلى الأمة يضلك يما لحظة قرنك عن داعو وهاي داعو وشقينيو وبالله توفيق والله يا ويقول بالله يا ويقول تالله يا أمة يضلك يا دينتا إسلامك إنه ستة على وشقينه وبالله توفيق وحيقول والله ويقول بالله يا ويقول الله يا أمة يضلك يا دينتا إسلامك إنه ستة على وشقينه وبالله توفيق إلى أمة يدلك يديت إسلامك لبعض إتبعنا ستعالى وشقينه ويقول بالله يا ويقول الله يا إلى أمة يدلك يدين إسلامك ستعالى وشقينه وبنتي وجودها أولاد اللي معانا وصلوا لحد جلدها مرة اللي معانا وصلوا لقوم دوار اللي بقى مرة جامع يوسف يوسف بدور حسب مصطفى يوسف اللبي اللي ما تكيب بشي ديسمبر لما كنا اللبي تونكي وانجوجنو مال عيتها مال سبتيا انجوجنو تقبل بكي وحن نادي كفريا شركي وري اللي عملنا الصوت ورديت الجولات دقيقة مركزي وحن مركوري السلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالكم واحد نوجود مرتين دارتي وحاويا وحي عن حتى عن دولنا فتقينا كواد كانت كدورتان وحاويا بدميه الدجمة أما قدومي كل هذا يقدومي كتيركي إلى هاي حش هاي قاصرو وحويا بدل وحنا قلنا نوعها ورشدي كلين هذا ودوين باليرا هذا ودوين مركا ودوال النفس دوال النوتشلي ما يتبع دورانينا متى واحد لو جاب هاي أنا جماعة اللي بيتهم كيلو كله إن حتى قبل سمعنا يا ما قالوا تاني كيلو شرع عن هستا محمد أحمد عتاي ومثني وما يستاجي ما كي واحد كله يستاجي كله يستاجي ولا ما ده كاسوا حمل أنا دوت هبل واد ما تنتين صدق يتم لبيت مكين المضلية أنا قبل ما واد ما تنتين إيه جنا وحنا قرينا قدوم حجانكي وشرعنين استوى شرحان قدومي كحجان عندي ما عاد شيء وادنتي معلومة لنا يا وادنا تنتين كل محوها وحين نقرنها دقيقة وقفنا على هنا الله ما دام اللي بنا يعني وهم بلينا يا إن دمانتي وأنا إني رشقين دولنا أنا هو حنايت دومي دقيقة دهورة وهم بنا قاضية إني رشقين يوم وأنا دارني لكن إذن كنا كل والله كل واحد يقول شيء وحلا ينقهوا أنا وقلادي وحنايت أنت بدل ما تسوي كل حسنا وين أنت بدل ما تسوي جوكي ما أنت أنا وين نرجو قايل قولي وكمل هاي يعني كل أنا في حاجة يبعثين ثلاث ساعات فأنا محكوم هذا إني عاون يوم
shaqayn doono idinkana waxa la idiga rabaa degmada inaad wax ka bedeshaan kii hore iyo intii la shaqaynaysa waxaan idinku soo dhawaynayaa qabeedkaynimada anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca degmadaba waxaan si diiran idinku soo dhawaynayaa degmada Baki oo u baahan in badanna soo shaqaysay wax qabad badanna u baahan waxaan soo dhawaynayaa isbedelka cusub ee ummadda deegaanka Baki inay cid waliba marqaado kubadda ah waxaan soo dhawaynayaa furxaan la'aanta aad isku doorateen ee tartan kale aanu dhicin ee codka boqolkiiba boqolka laydinku doorteen waa idinku soo dhawaynayaa intaa kabacdi waxaan idinkula talinayaa inaad idinkuna ummadda siday idiin soo dhawaysay aad u soo dhawaysaan inaad isku xidhaan ummadda inaad dalka u shaqaysaan ee rugcadaaga ahaa sida barradiisu iyo maamulka gobolka loo magacaabo sida sharafta leh ee aan riid lahayn ay uga soo tushadeen intaa markaan ku daro kolley mahadnaqa ilaahay baa mahadle wasiirkaan siinaya sida yaree fudud ee ay hawju u dhammaatay in badan buu ku dhex jaaray kolley wuu ku mahadsan yahay waanu mahadnaqaynaa in badan waanu mahadnaqaynaa waxaan u sheegayaa geed kasta joogan iyo tulo kasta joogan inaan ugu tegi doono iskuna sheegi doono qof walba cid walba waxa kuwaajibo waxaa shacbiga kuwaajiba iyo waxaa kalmeel intaas waa intaas gudaha qaranka iyo gobolka waxaan u sheegaya inaan kula shaqayn doono kala dambeyn iyo isdhexgelin iyo haykalkii dowladnimo inaan kula shaqayn doono anaa gobolka hoos tagna gobolka lagu xidhi doona qaranka intaas waa intaa degmadan oo meel banaan oo wixii hanti ay lahayd dowladda dhexe lagu wareejista beeraha oo kale meel banaan bay joogtay la dhaqaalo male kabayaal dhaqaalo male meel banaan bay degmada istaagan tahay haddana iyadoo caynkaas waxaan jecelahay inaan isbedel ku sameeyo intaana waa ballan qaaday waxaa kala jirta sidaa iminka la sheegay degmada saacadaweysi waa masiibo qaran baa jirta oo gurma qaran u bahan waa dhaxooyo dhul loo wato meesha lacag lama soo doodaana qaadin waa looya kuwii hore u baktay laakiin dadka anagu waxaan usoo galnay inaan anagoo bashaar dowladdu haddii ala idhaha waxaan la shaqayn doonaa qaranka gobolka saasaan ballan qaadayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi golayaga cusub dadweynaha sharafta leh odayaasha dhaqanka dhammaantood salaanta waxaan ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta mahad ilaahay baa iskale mahad ilaahay baa iskale dadka talabaad waxaa iskale dadkiina doortay dadweynihiina doortay baa talabaadna iskale ta saddexaad waxaa iskale golihiina doortay xil bay noo dhiibeen xil culus bayna saareen 78 inan baa ka tartamaya degmada Baki 13 inan bay xil nagu saareen haddana 2 nin bay nagu sii saareen waa xil culus runtii waxa la noo dhiibay waa ogtiin culays badan baa jiray xilka intaa leeg waxa yaala meel banaan waxaan joognaa degmo Saboola waxaan joognaa oo degmo Saboola oo joogtaan madaxdii qaranka maanta way joogtaan waxaan noo haray weliba hal tallaabo noo hadhay oo nagu istaago 2 jeer hore la soo taageeray hadday xafladan maanta intoona naga kala dareero berita meeshii banaanayana waan isku soo hadhnaa culays kale waxaan u baahanahay inay tii hore 2 jeer lama soo taageeray sidaan iga dhamaanin haddaad madaxdii qaranka tihiin haddaad dadweynaha doortay tihiin oo la nala istaajiyo ilmaha mar uu dhashaa mar waa la kiciyaa cagaha marka la noola joojiyo kadib anaga la nagala xisaabtamo khasaaro waxaan keenay haddii san maanta halkaa la naga dhaqaaqo dee ceeb uma iskuleynana ku horna ceeb taan baa ahayd oo meel bannaan laakiin waxa weeye ayaynaa noqonin qofka la aasay mashruuc waxa dhammaaday arrinkiisii maalinta haddee dad badan baa aaska tega weelkana waa laga soo urursadaa ha noqonina qoladii weelka naga urursanaysay waxaan u baahanaa inaad iskaayaa taagtaan kabka loo soo daynaya dowladaha hoose waxa weeyaan marka horeba inaad mashruuc soo qorto oo tiraahdo waxaan doonayaa mashruuc caynkaas inaan fuliyo
dakhligii soo galina waa intaasaa iga dhiman oo doonaya in lagu kabo adigana markaa waa lagugula xisaabtamaya inaad mashruuca fulitiisa golaha cusub ee la doortay sifuhu ku yimid iyo waxqabadkiisu ku noqon doono waxaa ku timaadeen doorasha ku timaadeen xaq ah oo cod ah ay ku timaadeen shacabkeeni soo doortay waxay naga sugayaan waxqabad bay sugayaan waxqabadku wuxuu ka yimaadaa waxa curiya guddoomiyaha deegaanka mudanayaasha golaha yaa curiya dawladdu waxay naga sugaysaa barnaamij bay naga sugaysaa waxqabada maxaan qaban karnaa baad dhamaystimaada degmada beeraha inaad u dhigtiin qorshe waxqabadkiina ah oo maxay beer u baahan yihin see looga faa'iidaysan karaa waxaan kaloo u baahan namaad guurka mashaariic samaysa wadkagidigi war maxaan qaban karnaa maxaan qaban karin sidaa darteed dardaarankaas yaa qoladana way sii socotaa waxaynagu guwaabin aan leenahay midnimada